Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa xog ku saabsan caasimadda waddanka Baraasiil. Fadlan taabo subscribe, like-na nagu dhiirigeliya. Kadib markii ay cidhiidhi noqotay magaalada caasimadda oo ahayd waddanka Baraasiil kontomeeyadii, magaaladaasi oo loo yaqaanay Rio de Janeiro, ayaa madaxweynihii waqtigaas talada dalkaasi hayay Mr. Glazinho uu amray in la sameeyo caasimad cusub oo la jaanqaada casriga taagan. Waxay Rio de Janeiro caasimad u ahayd waddanka Baraasiil muddo dhan 125 sano, waxaana kontomeeyadii qarnigii tagay ay gaadhay xaalad adag oo ay dulqaadan kari waayeen dadweynaha reer Baraasiil iyo madaxdooduba. Waxaana markaasi dhacday in magaalada Rio de Janeiro ay cidhiidhi xad dhaaf ah noqoto. Gawaadhiduna waxay noqdeen kuwo ay muddo dheer ku qaadato sidii ay u gaadhi lahaayeen meel aad u dhow, waxaana magaaladaasi ka dillaacay xaafado isku raran ah, kuwaas oo magaalada u soo kordhiyay fayadhowr xumo. Sidaa awgeed, madaxweyne Glazinho waxa uu go'aamiyay in caasimad cusub loo dhiso waddankiisa, taasoo la isla gartay in laga dhiso meel 1 kiiloomitir u jirta caasimaddii hore, iyadoo looga dan lahaa in caasimaddu noqoto meel dalka bartankiisa iyo in la camiro dhulka galbeedka oo waqtigaas iska bannaanaa, iyadoo magaalooyinka waddanka Baraasiil ee waqtigaasi ahaayeen kuwo badankoodu ay ka dhisan yihiin dacalka bari ee xeebta. Olole xooggan oo loo qaaday sidii magaalooyinka loo dhisi lahaa ayaa waxay qayb weyn ka qaatay shacabka reer Baraasiil iyo dowladdooda, waxaana muddo 5 sano ah lagu sameeyay dhisidda goobaha aasaasiga ah, iyadoo xadhigga laga jaray taariikhdu markay ahayd 21-kii bishii Abriil 1960. Caasimadda cusub ee Baraasiiliya waxaa qaab dhismeedkeeda qorsheeyay 2 injineer oo u dhashay waddankaasi, kuwaas oo la kala yiraahdo Oscar Niemeyer iyo Tunisia Costa, waxayna labada injineer u qorsheeyeen qaab u eg diyuurad. Kadib markii ay soo idlaatay dhisidda magaaladu, waxa uu soo wareegay dhammaan xarumihii dowladda dhexe, kuwaas oo ku jira qasriga madaxtooyada, waxaana dadweynuhu si injir ugu soo qulqulayay magaalada, iyagoo ka imanaya caasimaddii hore ee Rio de Janeiro. Iyadoo dhismaha magaalada cusub uu fududeeyay cidhiidhigii la yaabka lahaa ee ka jiray caasimaddii hore, masaaxada ay ku fadhido magaalada Baraasiiliya waa 5,802 kiiloomitir, iyadoo tirada degan sanadkii 2016 lagu qiyaasay 4 milyan. Magaalada Baraasiiliya waxay qaramada midoobay qaybteeda qaabilsan aqoonta iyo dhaqanka ee UNESCO inay tahay meel dhaxal aqooneed oo caalamka oo dhan ka faa'iidi karo. Magaalada Baraasiiliya waxaa sanad walba booqda ku dhawaad 1 bilyan oo dalxiisayaal ah, kuwaas oo soo indho-indheeya meelaha quruxda badan ee laga dhisay magaaladaasi, oo muujinaysa dadaalka iyo fikirka ay sameeyeen dadweynaha reer Baraasiil.